waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaa kaloo ku sugnaa goobta shirka madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamed Sayid Aadan golaha wasiirada intooda badan 95% way joogeen waxaa madaxweynuhu uu ka hadlay xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee wadanka labada qodob ee ugu waaweynaa ee uu madaxweynuhu warbixinada ka bixiyay golaha wasiiraduna ay su'aalaha ka soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee kala guurka wadanka qodobadii laga dooday muhiimadda ay leedahay doorashooyinka waqtigoodu uu soo dhow yahay iyo jawiga xaaladda adag ee ku jirto wadanku ku jiro iyo sidii loo dejin lahaa xaaladda siyaasadeed iyo midda bulshada si wanaagsan looga qayb qaadan lahaa si Soomaalinimo dhinac walba ayuu madaxweynuhu ku dardaarmay qodobka labaad ee uu saaka madaxweynuhu ka hadlay golaha wasiiraduna ay bogaadiyeen lana dardaarmeen waxay ahayd ciyaartoydii kubadda cagta ee koobka iyagu gacanta ku hayay sanadlaha ahaa ee ka dhici jiray Soomaaliya ee isteediyadu ay ku tartami jireen waxaa koobka gacanta ku haya kooxda Jubbaland saakana waxay ka ambabaxeen garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana saaka qoreec u sameeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada oo la dardaarmay iyo qaybo ka mid ah golaha wasiirada oo uu horkacayo wasiirka isboortiga waxayna ka baxeen garoonka oo ambabaxeen inay ka qayb galaan ciyaaraha magaalada Muqdisho qodobka saddexaad oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa qorshaha ansixinta budgetkii 2020 iyo 2021 wasaaradda financigu ay soo jeediyeen miisaaniyadda 2021 waxaa lagu ansixiyay cod aqlabiyad leh oo ay golaha wasiiradu isku raaceen qorshaha labaad ee la soo gudbiyay wasaaradda qorsheynta soo gudbisay wuxuu ahaa qorshaha horumarinta dowlad goboleedka Jubbaland taasi oo cod aqlabiyad iyadana lagu ansixiyay labada qorshe xeereedna waa la ansixiyay Maxamed Xasan Xiis Jubbaland TV Kismaayo.